السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaanu bilaabaneynaa cashir jadiida kaasoo aanu ku eegayno saanka lagu daro ama bacaadka lagu daro oo shamita lagu daro. bacaadkaas markaa baaritaano badan baa laga baarayaa oo ceebo uu leeyahay baa jirta isaga laftiisa ka ama ciid beereed baa ku badan ama xasili markaa waxaa lagu leeyahay material finer than 2000 siifka la yidhahdo magaciisa 200 ama 0.025 micro. markaa wuxuu caddaynaya markaa kaas waa ka sambalka siiberiya waxaan insaan hore soo qaadanay yani sambalka caadi soo qaadaysaa. sambalkii markaad soo qaado waxaad samaynaysaa qaybitaan baad ku samaynaysaa separating sidii aan hore aanu soo qaadanay. ay sambal aad soo qaado waxaad samaynaysaa inaad kala qaybiso. marka waa laba dariiqood loo qaybinaya baan idin qaybada koowaad waa dariiqadii jihaan ku qaybinaynay bahalka jihaaskii aan ku kala qaybinaynay labada fatxada labada qaybood. kanna waxa weeye sidii aynadii hore aan baaritaanka u dambeeyay aan ku sharaxnay sidoo kale loo qaadaya waayo waa fududahay isaga in loo qaybiyo sidaan. waxaanu qaadanaynaa sambalka mid oo iska soo horjeed baanu qaadanaynaa marka baaritaan kasta oo la baarayo muhiimad buu leeyahay. hayaana la yaraysan oo la odhan mayo kale baaritaankan berri buu ka hor iman waxaa lagu odhanaya soo baar baaritaankaas ama adiga laftaada waxaa weeyaan siaad ku ogaataad rabtaa in yani bacaadkan inta ciid beereed ku jirta dhowr dariiqood baa lagu kala ogaadaa. siaan hore soo qaadanay biyaad ku shubto ood ruuxdo ood muddo 3 saac dhigto hadhowtole aad eegto inta ciid beereed ee dusha ay soo taagtay siaan hore soo qaadanay iyo inaad eegto basin 2000 siifka la yidhaha magaciisa 200 ama 0.057 micro. marka waka hadda sambalkii baan qaadanayna iska soo horjeed baa loo qaadayaa. markaa sambalkan markaad qaado waa miisaamaysa ciiradii hore siaan usoo qaaday siif analysiska si loo sameynaya weeyaan. laakiin waxa weeyaan waa muhiim baaritaan kastaba waayo waxaa weeye adinu munaasabo neyskani bacaadkan inuu munaasib u yahay concrete-ka iyo in kale hadday ku badato ciid beereedku waxa weeyaan waa dhibaato keenaya. markaa waa la ilaaliyaa markasta waa la ilaaliyaa oo gaadh baa laga haya waxaa laweeya meesha masterka laga soo qaadayo yaa la ilaalinayaa si uunan waxaasaa ku yimid mar baa laleeyahay ceebtaasaa ku timiday dhibaato ku keenaysa concrete-ka. marka hadda sambalkan qaadayna waan miisaamayna hadda saxanka 0 baan ka dhigaynaa madeebadka yar 0 baan ka dhigaynaa waa miisaankaa shidaynaa. markaanu miisaankan hadda shiday 0 baan ka dhigay saxanka oo looma baahna miisaankiisa sidii hore aan soo qaadanay weeyaan tacliinta. waan miisaamaya sambalkii waan qorayaa markaas waa before washing intaan la maydhin yaad miisaamaysaa. miisaankan waad qoraysaa hadhow waxaad ku samaynaysaa wash inaad ku samayso nafsa siifka lagu leeyahay 2000 inaad ku maydho. marka waxaa jirta dariiqadooyin siifkani waa aada buu fine u yahay marka waa la ilaaliyaa in siif ka sareeyo oo 8 ama yani 2.36 kii 8 ahaa number-kan laga sareysiiyo hadhow doole haddii laakiin finku yar iska yahay naacamniisku dhibaato kuma keenayo. wax kasto finku waxa weeyaan basin 4 number 4 kii weeyaan iyo la dhahsaan wixii ka sareeyna waa course aggregate. marka tan waxa weeyaan waxay ka hooseysaa number 4.75 ama 4 lagu magacaabo 4.75 milli weynkaasi iyo oo lagu magacaabo iyo ama number 4 baleda. marka kaa wixii ka hooseeyay basin sameeyaba waxa weeyaan waa fine baa laga soo qaadaya. wixii ka sareeyana waa course aggregate ee return ku noqda. hadda maydhitaanka ku kacayna waan maydhina siifkan ku maydhina kaas ilaa ay nadiif noqoto waxaa baxaya wasakhdii oo dhan ciid hadday tahay boor hadday tahay walbos oo ciid oo bacaadkaas ku jiray biyuhu raacaya. intii hadhayna 2000kii ku xafidmaysaa dib baad iyada lafteeda u dhaqaysaa. ka dhacdo waa sidii aan hore usoo baaranay waxa weeyaan descriptionka ama qaybta u dambeysa filling ayaan warqadii inuu soo raacinaya caadi calculator kasta loo xisaabiyo waan ku celin markaa
markuu hadda ka baxa wixii oo dhan wasaqdi ka baxda waan ku celinaynaa saxankii baan ku celin 2000 wixii ku xajismiyey retain ku noqday wixii wasaqdina way dhaaftay hadda waanu qaadinaa waanu engejinaynaa biyihii baan waswakaada engejin baan ku sameynaynaa foreign ma haysana saan red nigu sheegay waxa weye nidaamkiisu in 24 hours yani oven la geliyo darajadiisu ay tahay 110 centigrade ay tahay ayaa la gelinayaa waxa marka foreign ku jira 24 hours kadib baa laga soo saaraya laakiin hadda meesha ma yaalo goobtan aan joogo saa ugeed baanu waaligsanaynaa shawlad waanu engejinay way dhamaatay hadda waa ka hadda isagoo engegan waan miisaamayna haddana وكوان ميزاننا saxan kale uu ku jiray waan saxan kale ku shubay miisaanka saxan kana sifir hayn waka saxan kaas zero ka dhigay waan miisaamaya aan qorana marka labadii miisaan waa haysaa before washing iyo after washing before washing iyo after washing waa haysaa labada marka xisaabaadkuna waa warqad gadaal ku cadeynayna iyo description-ka asoo marka subscribe dhaha share dhaha insha Allah waa warqadda saas inii sheegaysa subscribe dhaha insha Allah khayr baan idin rajeynayaa dhamaantii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.